madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu xalay kulan casho sharaf ah uga qayb galay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. kulankaasi waxaa soo abaabulay inta badan isku soo dubariday xubnaha golaha deegaanka oo qayb weyn ka qaatay buugfeerka Garowe ee sanadkan. buugfeerka Garowe oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa inta badan ka soo qayb galay abwaano, qorayaal iyo sidoo kale siyaasiyiin, waxaana madaxweynuhu halkaasi ka jeediyay dardaaran adag oo kula dardaarmay dhammaan qorayaasha, abwaanada iyo sidoo kale hal-abuurada kala duwan ee Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada Puntland. waxa uu kula dardaarmay inay qayb lixaad ka qaataan samata bixinta iyo sidii ay afkaar sax ah u tusi lahaayeen jiilalka soo kacaya. runtii fursad ay tahay caawa inaan sii dardaaranno oon markii la yiraahday dadkii wax qori jiray abwaanadii waa lala shiraayeen waxaan isla meelaha gabayo iyo howlo badan baa ka dhacaya laakiin ma muuqato dadkii barnaamijka qabanqaabiyey dayax waa uga mahadcelinayaa maaweeladeedii yarayd iyo runka taabashadii ay ka hadashay. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maskaxdii bulshada Soomaaliyeed oo maanta Garowe ku kulansan inaan kula la yeesho aad bay waxay ii tahay sharaf. waxaan ka mahadcelinayaa cidii fursadaas noo samaysay oo runtii ahayd dadkii qabanqaabiyey buugfeerka. dabcan dadka halka fadhiya dadkii wax loo sheegi jiray maaha, waa dadkii iyaga dadka wax u sheegi jiray, hal abuurayaashii, qorayaashii, dadkii ummadda hagi jiray. waxaan kaliya oon rabnay inaan idhaahno waad mahadsantihiin kasoo qaybgalka, waana iiga mahadcelinaynaa dowrkii aad ka qaadateen inaad dadka Soomaaliyeed aqoontooda wax ku biirisaan. waxaan kaloo rabnaa inaan halka runtii sii farno in weli baahidii dadkiinu inii qaban inay taagan tahay iyadana inaan inii sheegno. waxaan runtii ii muuqanaysay buugaagta la qoro iyo dadka hadda habka ay wax u akhriyaan ama wax u fahmaan naftirkiisu wuxuu u baahan yahay in dib loo eego. waxaan rajaynayaa dabcan waayadan dambe Facebook baa dadkii wuxuu u noqday macallin. Facebookana qoraalka dheer dadku ma akhriyaan, waxay akhriyaan waxyaabo yaryaroo sometimes graphic lagu sameeyey ama dad hadlaya baa dadka hadda u noqday inay maaragtay daaragtigarayaan ama toojiyayaan. waxaa laga yaabaa buugtiina wax badan ku qoran yihiin oo fiican, dadka akhristay inay koobnaadaan. marka horta waxaan inagu baraarujinayaa bal habkaa fariimihiina bulshada u gaarsiin lahaydeen iyadana ka dooda oo ka sheekaysta. qodob muhiim oo haddii kale niman baryahan caamku ah Facebooka waxay laga qaadanayaan dadka iyaga maaragtay wuxuu sheegaya dhici karta waxa aragteen wax ka duwan inay noqdaan. dabcan aalad kastoo timaad in laga faa'iidaystay rabtaa. marka waxaan rajaynayaa qorayaasha buugga waa la akhrin doonaa, laakiin barnaamijyo kooban nuxurka buugga oo kooban iyo waxyaabadooda ku saabsan in lagu darsado qorshaha qof walba buuggiisa dadka uu ku gaarsiin karo. waxaan ku faraxsanahay in gabdhaha wax qora ay aada u soo kordhayaan sida halka laga sheegay. runtii qoriddu waa hibo ilaahay uu bixiyo iyo mid la isku dayo oo runtii qofku uu jeclaado oo maaragtay meelaha oo kale markuu kasoo qayb galo ama buugfeerada uu kasoo qayb galo uu arko dad asaagiisa oo wax qoray inay qaado inuu training u galo siduu inuu wax u qori lahaa ay dhacdo. dadka noocaasa waa dadka inta badan qoraalka cilmiga ah oo aan u baahnayn fikir badan wax ka qora ama tarjuma buugaagta cilmiga ah, laakiin dadka curiya afkaarta waa inta badan waxay u badan yihiin hibo ilaahay uu siiyey. runtiina ummadda Soomaaliyeed waxay aad caan ugu ahaan jirtay hibada hal abuurka oo gabayada iyo guurowga iyo waxa la halmaala afka lagu soo tiraabta lagu tabiyo ay caan ku ahaan jirtay. marka dib loo eego gabayadooda mararka qaarkood casriye fog waxyaabo ay tilmaamayaan markaad hadda dhegaysatid baad la yaabaysaa. marka mararka qaarkood
وحير أو كل هبلو وأنه عبادته وأصله له قفكا وحاو كشكينا يقرني ونولا يوح حد سي أسر ينحن وإلهام ننعك لكتب إلهي وكوك الله ديست طبعا ضدك النوع عاصم مركي قرآن بدلان ضدك أصله تأثير كبدن بكين دونان برشة وكين دونان waxay kaloo u baahan tahay naadiyada badan ee hadda laga sheekeeyay deegaamada kala duwan ka jira inay ku daraan qoraalka iyo qoraalada sidii dadka loo gaarsiin lahaa dabcan dadkeenu waad ogtihiin xoogiisu miyigay ku nool yihiin inkastoo hadda ruuxadeeda miyiga ateenooyinka gaareen oo facebook ku gaaray oo naftarkooda taas ay faa'iido u noqotay waa ku khasbanaaday inuu aago hor markuu taleefanka soo baxay reermigu wuxuu ku khasbanaadeen nambarada inay bartaan si ay qofkii u raadiyaan hadda waxay ku khasbanaadeen si uu whatsapp u diro inuu kelmaadkii inuu qoro waa qasab bay ku noqotay muhiim maaha in gacanta uu ku qoro laakiin markii la tusiyo xarfaha way uga sahlan tahay marka naftarkeeda qayb aqoonta sii kordhinaysa way ama inuu akhrin karo marka waxaa la rabaa fursaddaas in laga faa'iidaysto oo dadka fariimo wax ku oola oo bulshada dhismaheeda qayb ka ah in la gaarsiiyo runtii sida halka laga sheegay wax badan oo isbeddelaa jira hor u kac ayaa geyiga Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ku socda magaalooyinka dadka Soomaalidu ay degaan dhinac walba way kobcayaan ama dhinac magaalo ama dhinac maamul ama deegaanaday doonaan ha ku jiraan min Djibouti ilaa Jigjiga Gaarisa iyo Soomaaliya inteeda kale taba kobac waa ku jira dabcan waa fiicnaan lahayd sida quruxda badneed inaan hal mar helno laakiin haddana markaa wax weydid oo haddana aad rabtid inaad wixii aaweyday aad baadi goobtid oo baadi goob ku jirtid naftarkeeda waa yidadiilo markuu baadi goob ku jirin oo rajadu dhimato markaasaa xun marka baadi goob baa jira inay Soomaaliya ay runtii cagaheeda ku istaagto dal xasiloon oo nabdoon oo horumarsan inuu noqdo oo dadkiisu ay nolol sacaado ah ama degan ay ku noolaadaan dabcan howl bay u baahan tahay hadalka inta aan kusii dheeraan waan ka xumaa inaanan ku bilaabin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo qarixii foosha xuma ay ka dhacay gobolka Banaadir oo runtii gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal ay ku nafwaayeen gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada oo runtii saaxiib dheer muddo dheer aan ahayn aad u fog weliba oon hadda la sheegi karin aan saaxiib ahayn ilaa ay yaraan waa ka xumahay ilaahay waxaan uga baryayaa dhaawiciisa inuu u boogadhayo oo caafimaad degdeg oo sariica uu siiyo dabcan weli waa lala tacaalayaa dad badan oo kaleeto oo runtii aad aan uga xunnahay oo halkaa ku geeriyooday waxay tusaale u ahayd sida lay sheegay anigu hadda waayadan intii lagu shaqeeyey ma aanan tegin xarunta gobolka laakiin waxaa lay sheegay in security-gu aad u adka oo aysan ahayn meelaha sida sahlan loo geli karay marka runtii waa calaamad khatar ah meelihii sidaas oo kaleeta haddii la gaarayo oo dadkiiba wax la aamino la garan waayo iyada naftirkeeda waa nooc xor leh oo runtii dadka rajulama ku abuurayso laakiin aan waxaan aaminsanahay haddii ilaahay idinka dhigo in wax laga baranayo markii wax dhacaanba waxbaa laga barta arrintaas runtii dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ugu tacsiyeynayaa wuxuu ahaa dhacdo aad u foolxun oo dhacdooyinkii waayadan dambe uu Soomaalida ka dhex dhacayay qayb ka ahayd taas iyo tii ka horreysay iyo tii Kismaayo iyo intii hadda u dambeysay waxaa muuqanaysa laba kacleyn hor leh marka ilaahay idinkiisa waxaan ka rajeynaynaa in ummadda ilaahay uu ka badbaadiyo makrigaas ay soo maleegayaan inta Soomaalida samaheeda aan jeclayn oo meel walba ku wajahan waxaan rajeynayaa inay dadka Soomaaliyeedna ay amniga u foojignaadaan dabcan haddaan dad Soomaaliyeed aysan fududayn way adkaanaysaa inay wixii doonaan ay sameeyaan marka in amniga dadku ay ka wada shaqeeyaan oo aan cid gaara oo hay-ada gaara aan lagu hadlayn marka taasna waa iga dardaaran iyo fariin waxaan kaloo runtii aad u jeclaan lahaa
dabcan muddadii aad joogteen wixii experience aad dhexdiina ka kala hesheen waxaan rajeynayaa inay isu bedelaan wax ummadda anfaca oo mid inaga mida inuu qaato book fairkii wixii ka soo baxay iyo wixii laga faa'iiday in qoraal laga sameeyo naftirkiisa hal buug oo meel kasta markuu ka dhaco in report buug u eg in laga soo sameeyo meel kasta markii lagu qabto wax cusub baa lagu soo dhigayaa xataa buugaagtii lagu soo qoray ay ku dhignaadaan hadday doonaan waa dhici kartaa qabanqaabayaashu inay arrintaas u xilqaamaan si uu isaga naftirkiisa rikoorka uga mid noqdo dadka ka soo qayb galay buugaagta la soo bandhigay hadallada laga soo jeediyey mawaadiicdiisa naftirkiisa waxay u baahantay cilladaha kale aan leenahay waxaa ka mid a dhinaca maktabadaha oo soomaaliya iyo kaydinta taariikhda iyo buwaagta oo aada uga yirta iyadana in iyadana maaragtay xoog la saaro dabcan wax walba imkaaniyaadka mararka qaarkood dabar bay u noqonayaan oo imkaaniyaadka kooban ayaa waxyaabo badan xadidaya laakiin waxaan rajaynaynaa haddii la hayno maalinba intii taagteen aan tallaabsanaynaa laakiin inay niyadu jirto aad baad u mahadsan tihiin runtii fursaddan aan isu helnay waana jecelnahay insha allah inaan si fiican isu sii warwareysano dad fara badan oo muddo dheer iigu dambaysa halku arkay mustafa dheeg baan maqli jiray fayrus buu la baxay hadda naftarkiisa waxbaa iska bedel marka dad isbedbedelay meesha baa ku arkaa magac marka qoraal la noqdo waxbaa isbedelayaan u malaynaya marka magacyo badan waa la baxday kullaysaan u malaynayo marka aad baad mahadsan tihiin waxaan uga yaabaa buwaagta aqorteen in lagu magac daro saasaa dhici karta ama raseejada aad samayseen aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi